toban cudur ayaa siigada laga qaadaa mid kastaana midka kale waa ka daran yahay haddii aadan dayninna hubaal tobankan mid ka mid ayaa kugu dhici doona dabeecaddan rag iyo dumar badan baa leh inkastoo raggu ay u badan yihiin hase yeeshee siday doontaba ha ahaatee dhinaca dhibaatada labaduba waa ka siman yihiin dunidu 1930 adoonsiga hal mid oo kaliya ayay u yaqaaneen oo dhammaan dadku ka sinaayeen laakiin waqtigan maanta aynu joognaa adoonsigu waa noocyo badan yahay tani waa dhibaato weyn oo maanta bulshada in badan oo ka mid ah haysata waxaana lagama maarmaan noqotay in xaaladaha qaar la soo qaado oo dadka laga wacyigeliyo waxaa laga yaabaa noloshaadu inay qas iyo ciriiri ka dhammaan laadahay waxaana laga yaabaa in mushkilada ku haystaan maalin walbana ay kugu sii badanayaan aadna isweydiinaysid xalkoodu xagguu ku jira waxaa dhici karta mushkilada ku haysata in tobankan cudur ee videogan aan kuugu soo gudbin doono mid ka mid ihi inuu ku hayo tobanku intuba waa wax noloshaada burburin karo baabi'in kara cudurka koobaad ee laga qaadaa waa shallayta joogta markaan akhriyay daraasooyin fara badan oo laga soo saaray mowduuca kan waxay dhammaantood ku soo urureen dadka ficiladan sameeya waxyaabaha ay ka dhaxlaan inay tahay shallaytadu iyadoonan u fiirinaynin qofku diinta u haysta dhammaantood bini'aadamkaas waxay ka wada sinaayeen in ay ka imaanaysay isceebsi waxa ay sameeyeen iyo foolxumada ku jirta ficilkan samayntiisa waxaa ku jirta alla ka fogaansho mar haddaad ilaahay ka fogaatayna noloshaadu ciriiri kama baxayso samaynta ficilkan markay dadku inta badan la imaanayaan iyagoo shaashad wax ka daawanaya ayay sameeyaan taasoo keentay in aflaanta xunxun daawashadoodu ay ku badato tani waxay kaa dhaawacaysaa noloshaada dhinacyo fara badan oo aadan hadda dareemaynin raaxada iyo waxa aad dareemaysaana waa daqiiqado yar oo kooban shallayto fara badanna ay ka dambayso cudurka labaad wuxuu yahay himadaada oo hoosaysa maskaxdaadu si fasiixa uma fakarayso qorshe ma degsan kartid awooddii go'aaneed ma lihid himadaadu kor maba aadi kartaba naftaadu mar walbaba daciif hooseeya ayaa dareemaysaa tan waxyaabaha shallaytada marka laga soo tago uu qofku ka dhaxlay ka mid tahay haddii naftaada aad rabtid himadaadu inay kor u kacdo jooji waxyaabaha kan jir ahaantaada iyo maskax ahaantaada iyo nafsi ahaantaadaba ku dhaawacaya oo ku daciifinaya cudurka saddexaad wuxuu yahay guurka oo burbura ama hadda guur ku jir ama mustaqbalka mid kuu soo socda ha noqdo dhinacyo fara badan bayna tani u saamaysaa rag iyo dumarba waxaa dhici karta qofku inuu gacantiisa in fara badan caadaystay isticmaalkeeda laakiin hadhow waxaa ku adkaan doonta marka uu reer yeesho in hawshaa sidii loogu baahnaa uu ku guto hadduu rag yahay haddii ay gabar tahayna in fara badan waxaa dhici karta in ninkeedu uu qancin waayo oo sida ay rabto uu qancin waayo waayo jir ahaan qofku waxa uu soo caadaystay ee samayntiisa u waday muddada aadka u dheer ayaa diidaysa inuu ku qanco hadda waxaan uu haysto sidii loogu talagalay si aan ahayn buu qofku muddo aad u dheer soo waday tanoo keentay in reerku ay sariirtooda ku qanci waayaan hadday noqoto dhinaca ragga waxaa laga yaabaa in xubinkaaga taranku sidii loogu talagalay ee bini'aadanimee rabbi uu ugu talagalay inuu hawshiisa u gudan waayo cudurka afraad ee laga qaadaa wuxuu yahay in awooddaada raganimo ay daciifto mana ahan tan xubinka taranka la xiriirtay hawsha laakiin dhinac maskaxeed iyo dhinac jir ahaaneed waa waxa keena rag badani inay jiimka aadi waayaan waayo jirkoodii baa jilicsan oo daalan oo daal fara badan baa ku duugan oo ka buuxa waxa keenaya daalkan tirada badanna waa dhacaanka jirkaaga ka baxaya ee ku baxaya sidii uusan rabbi ugu talagelin marka sidii rabbi ugu talagalay loo gudanayo waxaa hubaal ah inay faa'iidooyin fara badan ay ku jiraan laakiin marka qofku uu keligii gudanaya inta badan ragga waxaa la tilmaamaa in ay jirto marka dhacaankaasu uu baxayo in hawo ay dib ula noqoto markastoo dhacaanku uu soo boodaba sidii ilaahay quraanka ku tilmaamay biyahaasu way boodaan oo wax laga xishooda maaha markay boodayaan noqodka dambe ama labada booditaan inta u dhaxaysa waxaa la tilmaamaa inay hawo jirto dib ula noqoto xubinka taasoo keentay in xubnihiisa dhabarka dambe inay gasho tani waxay keentaa lafa xanuun waxay keentaa dhabar xanuun labadan ul isu geeyay baa rag badan ka hortaagan inay jiimka aadaan waayo naftooda ayaa waxay dareemaysaa daal fara badan jirkiina daal baa ku duugan lafihiina xanuun buu ka dareemaya ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinkiisa ka mid tahay markay ina ka tanbadato oo aynu celinno oo ilaahay dartii aynu ku hayno oo biyahaasu jirkeenna ay ku jiraan ayaa saq dhexe ilaahay habeenada ka mida kaa nafisiya haddiise aad sidii ilaahay ugu talagalay aad yeeli weydo ood hayn weydo dhinacyo fara badan oo noloshaada ka mida ayay tani ku dhaawici doontaa midda shanaad waxay tahay faqri waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid faqriga iyo hawshan maxaa isku xiray laakiin mid fiiri waxaad ogataa ficilkan kow samayntiisu waa nooc zinada ka mida ilaahay wuxuu tilmaamay inaynu xubnaheena taranka xifdino inta ilaahay inoo jideeyay in ka baxsan